gabadhii waxay dhahday marka gabadhii Soomaaliyeed Sahra u bixinayna gabadhii Sahraheed waxay tiri anigii walaalkay waan heshiinay walaalkay wuxuu riday inta ka badan aan heshiino ninkii wuxuu noqday nin wanaagsan saan dhan uma maleynaynin meel baan deganahay hooyo noqday afar caruuraan dhalay aan heshiino waan heshiinay aniga walaalkay wuxuu yiri marka gurigeyga imo arooskan iyo xafladani waxaan gurigeyga ka jira ka soo qayb gal guriga marka gabadhan la guursanayay walaalkay dumaashidii la guurinayay la meherinayo meherkaas iyo waxaas dhacayaan adigana kugu darayaa adiga ninkaaga haddaan doonaya inaan isu kiin meheriyo berigii qalad baan sameeyay inaan ku eriyo ma ahayn ninka inaan ku meheriyay ahayd culimaan dhageystay waxbaan gadaal ka ogaaday qaladkii aan galay berigii baan doonaya inaan saxo gabadha walaalkeed iyo aabaheeda dadka wilaayadeeda haya unbaa meherin kara haduuba ninku qaldameed adiga ninku qaldanteen banaan cidla iska guursateen anna inaan ku eriyo ma ahayn waxaan rabaa hadda wixii qalad ahaa ee dhacay oo dhan inaan saxoon adiga ninkaagii hadda aan isu kiin meheriyo waxa taa aniga waxaan idhi waayahay ninkii baan u sheegay ninkiina wuxuu yiri waayahay waa hagaag walaalkii ninkii way heshiiyeen aniga walaalkii waan heshiinay meher baa la isu kaay meheriyo aniga ninkii la leeyahay meherkii berigii baa la isku kiin celinayaa waxay tiri meher ma jiro meesha meher hore ma jiro anu ma ogin laakiin Allah ay baka Allah sidii baa la isku kaay meheriyo aniga odaygaygi mar labaad bay aan dadka dhan u maleynaya in xataa aan u maleynayaa gurigayga baan iska tagnay ciyaal kala noo dhashay batiro 3 ah afartii hore mooyin 3 ciyaal oo kala noo dhashay mar dhow oo hadda dhow ah baan waxay tiri maalin inuu Facebook iska dhex wareegaya ninkii berigii odaygayga saaxiibkii ahaa aan arkay oo Facebook ku arkay qoraal iyo waxbaan isu qorqornay sadaaqan isu dirsanay wuu aqbalay mise isaga u soo dirsaday ida aqbashay ma garanay way isla hadleen waxay tiri hadaan isla hadalna wariyay waran berigii wixii sidii baad Sacuudiga kaga tagto waxay ninkii dib u soo noqon Sacuudiga kuma soo noqon waan iswareysanay aniga ninkii muddo markaan iswareysanay waxaan ku iri marka walaalkay iyo ninkii hebel ahaana de way heshiiyeen ninkii nin hebel ahaan nin wanaagsan buu noqday oo walaalkay wuxuu waa nin wanaagsan oo saan uma maleeynin waxay tiri sheekadiisaan u wadnay buu ninkii yiri walaalka iyo ninkaagu goormay heshiiyeen hadda mar dhow bay heshiiyeen xilligii baan u sheegay ninkii waa ka ama kaaga yiri walaalka iyo ninkaagu haday hadda heshiinayaan yaa marka isku kiin meheriyay walaalka ma isagoo ninka colo oo ku meheriyay walaalka iyo maxaa hebel soo ku igu yiri gabadhiisan walaalkeed ugu noqonay buu ii ogolaado walaalkeed baa isii soo ku igu yiri maya walaalkay wuu isiyo hadda dhow wuu isiyay laakiin markii hore aniga hebel deemba guurkii adiga iyo hebel aad sheekha iga soo meherinayseen baan saan ugu joognay baan hadda dhow aniga walaalkay iyo ninkayga waxa dhan heshiiyeen kadibna de markaasaan hadana meher kala lagu celiyay ninkii waxay taani waaniga isfaham weyn ninkii hayaaba ama kaaga ha fajaco wuxuu igu yiri bay tiri ninka laftirkiisu inuu iska aamusay malaha wuxuu yiri berigii aan adiga ka tagnay ee tiri hibadeeda waan idin siiyay aan sheekha u tagnay sheekhu uu nala yaabay wuxuu yiri wax gabadho hibadeeda qof u dhiibi kartaa ma jirtee socda ordayo oo noqdo gabadha islaameed faraha ka qaado gabadha walaalkeed weydiista haduu idin diidin de banaanka ka mara oo sheekhu markii ima soo meherinin kuma soo meherinin waxay taani aniga yaabay waan argagaxay ninkii maalin kale aan la hadlay hadalkii oo dhan baan ka xaqiiqsaday ninkii wuxuu yiri markaan ka tagnay aniga ninkii hebela sheekhu wuxuu nagu yiri wax gabadha oo dhihi karta wilaayadeeda qofkan aan ku wareejistoon u dhiibtay oo wilaayada wareejin karta ma jirto noqda waan soo noqonay kadibna aniga waa la tarxiilayde aniga waxay tirteen aniga qaraacmay alla baayo balanbalayay ninku muxuu ka wadaa islaam ahmiya ma afar cunug intaan dhalay oo ninku soo nin islaama ninku waaba nin weyn waaba nin islaame maxaa ka qaldan caruurtaydii sidaan idhaahda aniga waxay tiri marka walwal iyo dhibaata iyo abuurantay 12 habeenkii oo dhan waxay tiri saan u fikiray mindi intaan soo qaatay baan ninkan caawa inaan koo ka siya gabigiisaba afar dood inta la dhalay ninkan aan u maleynay inuu odaygayga yahay ma jirto wallahi inuu ii noolaan waxay tiri ninkii hurdan indii la soo kor istaagay hadana waa fikir waxaan sir caruurtaada maxaa u xal amarka ninkan koo ka siisid toddobadan cunug agoomay noqonayaan aabahooda aad dishid adiguna xabsi aad gashid maxaa ku xal ah maxaad samaysaa maxaad waxay tiri iskoobaynta soo qaatay oo qaybta hore wax lagu xaaqay ka furfuray oo ul ka dhigay baan ninkii iska hurdadee waxay tiri wabta kaga saaray wabta ninkii waa ka argagaxay sasayeen maxay yaabay sararti ka soo dhacay maxaa kugu dhacay saharooy maxaad saan iigu galaysaa maxaad adigu waxaan u samaysay waxay tiri ninkii markaan la hadlay u gardhigtay ku iri maxaad samaysay qof islaamatid miya ilaahay kama baqaysid miya may wuxuu wallahi waxaan sameeyaan garan waaye qalad baan galay si aan u saxan intaasoo sano garan la'aa intaasoo sano baan qaladka aan galay si aan u sax garan la'aa si aan kuugu sheegaan garan la'aa meherkii aan ku celin si aan u dhahay waxba waan garan waaye kadib ilaahay baa walaalka ka hadliyay hadda caruurteena saddexda dambe way saxan yihiin afarta horan buu wax ka qaldan yahay dee marnaba horta caruurta yar dambi ma leh haddii xataa labada waalid ugu talagalaan qalad ay sameeyaan ilmaha yar wax qalad uu leeyahay ma jirto laakiin
gabadhaas waxay tiri masiibo weyn baa igu dhacday wax alaala waxaan sameeyay ma garanayo caruurtayda waxa uma sheegi karo cidna waxay tiri uma sheegi karo ninka haddaan iska furo saas kaga tagi lahaa in la ogaadaan ka baqayo ilmahayga la iga faquuqo hadhow fadeexad iyo dhibaato ay halkaa ka soo baxdo qofkii si aan ula noolaado ma garanayo si aan u cafiyo ma garanayo wax alaala waxaan sameeyay ma garanayo maxaan sameeyaa maxaad igula talinaysaan waxay tiri marka aniga hadda waxa la igula talinayay iyo waxa la idhahayo waxaaba iiga daran bay tiri ani gabdho fara badan oo yaryar oo dhalinyaro ah baa laga yaabaa in la yidhahdo hibadaada adaa haya wilaayada adaa wareejin kara adaa qofkan u dhiiban kara oo waxaa intay run u maleeyaan saas lagu guursado ama inta loo ekeysiyey yani saas in lagu guursanay saas lagula ilmo lagaga dhalo saaxaas lagaga dhigto ani waxay tiri marka masiibadan igu dhacday waana dhex taaganahay waxaan doonayaa gabdho fara badan inay qisadaydu digniin u noqoto gudbi ilaahay baan kugu dhaariya asxaabtaada la wadaag wixii tala ahaan gabadha aad ugu gudbin lahaydeen eed kula talin lahaydeen iyo wixii yacni digtooni iyo feejignaan qisadan aad ka qaadan lahaydeenba dee wakaas anigu aan idiin soo gudbiyay ma garateen gabadhaasna qaybta commentiga ugu soo qora waxa alaala wixii ra'yigiina aad ugu soo qoraysaan gabdhaha yaryarowna ee dhalinyaradahow digtoonaada oo isjira oo waalidkiin iyo walaalihiin iyo dadka waliil amrigiina ee idinka mas-uulka ah maqla oo ka dambeeya oo ka amar qaata hadday reerkiinu ninkuu diidaan iyo hadduu walaalkaa ninkuu diido ka hadho banaanka ka mar oo ninayna reerkiinu kugu darinayn reerkiinu ku siinin oon lagugu ogaanin ha guursanina oo gabdhow isjira oo naftiina ka taxadaradee waad aragtaan dadka waxa ku dhacay assalaamu calaykum qiso yaroo cajiibaan idinla wadaagayaa aadna u yaab badan sababta qisadan gabadha iskale ay usoo gudbisay ama anigu aan idinku soo gudbinayaa waxay tahay gabadh Soomaaliyeed bay qisadani ku socotaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan bayna ku saabsan tahay arrintan waxaa laga yaabaa gabdho badan ay ku dhacday inay jirto ama qaar ay ku dhici doonto ama laga yaabo qarkaba inay u saaran yihiin arrintan marka waxaan rabaa si serious inaad u qaataan gabdhaha Soomaaliyeed videogana inaad aad u share gareysaan si gabdho fara badan ay u arkaan sababtoo gabadha iskale sheekadana waxay aniga iiga dhigtay fariintan waxay igu tiri gudbi aday codkaaga dad fara badan maqlayaan gabadhan Soomaaliya ku dhalatay oo ku noolayd hooyadeed baa dhimatay waxay la dhalatay laba caruur oo iyada ka waaweyn oo wiil iyo gabadha labadii ka waaweynaa Sacuudiga u tahriibeen iyaduna waxay la nooleed aabaheed iyo xaas aabaheed uu guursaday oo wax caruur aabaheed aan u dhalin muddo dheer bay la nooleed xaaska aabaheed gabadh aad u wanaagsan oo fiican bay ahayd sidii hooyadeed oo kale waxay tiri ila nooleed waxaa geeriyooday kadibna aabaheed gabadhiina wax caruur may dhalin waxay iska aaday reerahoodii oo gobol kale gabadhu ka soo jeeday gabadhii waxay tiri marka aabahay uu qabay waxay tiri waan ku kaxaysanayaa adigana waxaan kula aadayaa gobolkaygii kadibna walaashay iyo walaalkay baa diiday waxay dhaheen maya gabadheeda ha kaxaysan oo reerihiini hala aadine noo soo dir walaalkay iyo walaashay waxay tiri lacag iyo fiise iyo baasaboor waxba ii sameeyeen iyo hagaajiyeen way i kaxeeyeen Sacuudiga la igey walaashay iyo walaalkay waxay tiri xilliga aniga Sacuudiga la igeenay reer bay lahaayeen waxaan tagay gurigii walaalkay shiday degan ayeen bay walaalkay iyo walaashay marka guriga walaashay baan tagay waxaan tagay guriga walaalkay nin waxay tiri Soomaaliya oo dukaan leh baan ka adeegan jirnay on adeega ka qaadan jirnay wax walba loo baahda laga qaadi jiray lacagta yani bisha markay dhamaato walaalkay siin jiray ninkii aniga waxay tiri sheeka noo bilaabato ninkii wuxuu guri waan ka helay waan ku jeclay waan issukaansanay guur baan ku heshiinay walaalkay iga soo doonaan ku iri ninkii wuxuu iga soo doontay bay dhahday walaalkayna wuu diiday wuxuu iri ninkan daraad dhowbaaba xaaskiisii la tarxiilay gabadh uu qabay oo meesha u deganayd ciqaabadii wax malaha ka dhacday waa la qabtay waa la tarxiilay gabadhii wuxuu iri marka faa'iido male ninkan faa'iidaha dul xaaskiisii la tarxiilay sharci waxa uu sameeyay soo cishado iska dhaaf waxba guursanay aan reer bulay reerkiisii baa la geeyay Soomaaliya oo laga tarxiilay ninkii markuu walaalkay ii diiday uu gabadhan kuma siinay ammaan si anigana uu ila hadlay igu yiri banaanka ka mar baan waxay tiraan waxaan sameyn jiray intaan doonto marka oo walaalkay maqan yahay yaa ninka dukaankiisa tagi jiray waan la soo sheekaysan jiray walaalkay inaan buxu ogaaday xaaskiisii buu ku qaylay wuxuu yiri waad iga furan tahay haday gabadhaasi iridka ka baxday yani kama bixi karta gabadhaasi iridko dagaal baa meesha ka dhacay xaaska walaalkay waxay ii diiday bay tiri marka inay baxdo markay ii diidi jirtay waxay tiri anigu si khiyaano markay seexatay iyo baan ku bixi jiray ninka markaan aadeen dukaanka alaab iyo wax ka soo qaaday waxay tiri mararka qaar kiniinka hurdada ii soo dhiibi jiray gabadha cabitaan iyo shaah iyo waxaan usoo sameeyaan kiniinka ugu dara markay seexato baan bixi jiray waxay tiri ninkii wax walba intuu sameeyay walaalkay si walba ii weydiistay walaalkay diiday oo inuu aniga ninka isu kaayay meheriyo wuu diiday ninkii wuxuu aabaha soo muu dhimanin soo agoon ma tihid walaalka muxuu ku gumaysanay aniga adab caadi isu guursan karnay waxa tiraahdaa wilaayadeyda adaan kugu wareejistay wilaayadeyda igu wareejisanaysaa wilaayadaada adiga igu wareejisanaysaa saasaan isku guursanayna aniga adiga nin baan kuu keenayaa ninka waxaad ku tiraahdaa wilaayadeydii ninkanow adaan kugu wareejistay dheh kadibna aniga ninkaas baxayna waxaan u tagaynaa sheekh saasaan kugu soo mehersanaya waxay tiri aniga waxaan idhi waayahay nin buu ii keenay
ninkii baa waxaan ku iri walaadeeda aadaan kugu wareejistay ninka waxay meelahan ku arki jiro ninkan saaxiib leeyahay dukaankiisu iimaan jiray anigu iska tagay markaan idhi ninkan aan ku wareejistay hibadeydii gurigayga baa iska aaday ninkii dukaanka iyo saaxiibkii baa israacay nin sheekhay u tageen waxay dhaheen gabadh ma rabnaa inaad noo meheriso hibadeediina anagay nagu soo wareejisatay ninkii wuu la yaabay nimankii wuxuu iri gabadh hibo haysato qofkay doonto ku wareejisan kartaa ma jirtee gabadha walaalkeed baa haya wilaayadeeda yani gabadha agoon aabaheed ugu dhintay waxbay ku dhaheen ninkii sheekha wuxuu iri gabadhan walaalkeedun baa idiin meherin karaya idhaaf waxaanad ka sheekaynaysaan anugu ma garanaya nimankii way soo noqdeen nimankii markay saas soo noqdeen ninka la socday inuu xaafadiisii aaday kii dukaankuna dukaankiisii uu yimid ninka saaxiibkii ahaa ee la socday hala qabto Soomaaliya ha loo tarxiilo ciqaabiyo waxba malaha ka dhacsanaa ma garanay Soomaaliya Sacuudiga joogto waa la iska soo tarxiilay ninkii hala qabto hala xidho hala tarxiilo ninkii dukaanku mar allaale markuu ogaaday ninkii in la tarxiilay saaxiibkii ahaa ha soo orday gabadhii ha u yimaado hiblaayo sheekhu uu isoo ka mihriib ku yiri gabadhiina waxay tir waayahay ninkii waxay tir sidii man xaaskiisa ku noqday anigu laakiin ma ogi Allahay baa ka Allah inuu ninkii yiri gabadhu walaad ma haysi waxaas dhan war ma hayo laakiin waxay tir kaliya waxaan ogahay ninkii saaxiibkii ah in Soomaaliya loo tarxiilay bas intaas baan ogahay ninkii sidii man xaaskiisa ku noqday uur baa igu soo baxay xaaskii walaalkay baa ifahantay walaalkay baa u sheegtay waxay tir gabadhan waxba ka qaldan walaalkay wuu itumay wuxuu yiri maxaa ka qaldan ma uur baad leedahay haaya ku uray ninkii dukaanka wuu igu xanaaqay walaalkay waxay tir alaabtaydii mariyihii waxaan watay oo dhan banaanka intuu igu soo tuuro banaanka igu soo daadiyay boo ninkii dukaanka faraha iga soo saaray wuxuu yiri gabadha ma ujeedo saadumada uurina maad guursanin hadda gurigeyso meel dajiso ninkii wuu ika xaystay qalbu ii kiray qolkii buu i dajiyay qolkii baan ku umulay ilmahaygii koobaad oo wiila waxay tir aniga ninkii reer baa noqono meel baan degnayba ilmihii labaad baa ii dhashay kii walaalkii gurigiisa aan uurka ku yeelanay ma ahane kii saddexaad kii afraad afar cunug markaan dhalay buu walaalkay ii yimid wuxuu waan heshiinayna aniga walaalkay afarta cunug intaan dhalay waxay tir col baan ahayn isma aragno isma naqaano isma salaano shaqo iyo shaqo isku maanaan lahayn xilli waxay tir aan guri deganahay oon hooyo ahay afar caruur haysata iyo walaalkay yiri waan heshiinaynaa aroos baa ka dhacay guriga walaalkay oo gabadha dumaashidaya walaasheed baa la guursanay oo guriga walaalkayba aroos ka dhacay wuxuu yiri marka waxaan rabaa inaan heshiino waxaan rabaa arooska inaad timaadid 5 daqiiqo waxba fiidiyo ku sii socday baartu baan idin ka dhigayaa dhamaystirka sheekada insha Allah xanaaqinaya istajiya